laabtan dadka lafaha xanuunayo daway u tahay. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno afar xabag oo dadka ay ku confuse garoobeen si aad u fahamtiin. Jimcadan meesha aad ku arkaysiin waa dawo waddankeena ka baxdo, cunto, faytamiino, daawooyin, antibiyootik, anti-cancer, intaba waa loo adeegsan karaa. Intaasba waxay ka baxaan Soomaaliya. Waa nimco Ilaahay noogu manaystay, laakiin waxaan gaalo intay naga qaataan ee dawooyin kale noogu soo sameeyaan. Mararka qaarkood maba la gadan kara, dad taajiriin bes ayaa gadan karto, laakiin hadda Soomaaliya dadka faqriga xitaa way gadan karaan. Waxaan ka bilaabaynaa xabag god, English waxaa lagu dhahaa shilajit. Geedan waa high mineral, macdan ka dhiman ma jirto. Intaasoo cudur ayaa lagu daweeyaa. Weli dadka ay u fiican tahay waa dadka low energy-ga ah, dhiig karka qabo, dadka sokorta qabo, dadka hurdo la'aanta ah. Faa'iidadeeda aad u badan tahay, laakiin intaasaan kusoo koobaynaa. Tan waxaa weeye xabagta cadaad, waxaa ku jiro natural probiotic ku jiro. Dadka gaaska aadka u dhibaya, dibirada, caloosha taagan, sunta ayay jirka ka saartaa. Dhiigkarkay u fiican tahay, hoos u dhigtaa, sokortay hoos u dhigtaa. Qofka rabo inuu isku caateyn karaa. Hurdo badan ay leedahay. Keli dhagaxa u fiican tahay, keliya xanuun oo dhan way u fiican tahay. Dad dialysis ku socday wiig walbo in markay bilaabeen caafimaadkooda caadi ku soo laabtay. Geedan waa mucjiso, waxay noqotaa cunto. Qofka cunto ahaan ay u qaadan karaa. Intaanba meesha aad ku arkaysiin kareemyada skinka la marsado ayaa laga dhigi karaa, ama saliidaha skinka la marsado. Marka kareemyadii dibadda laga keeni jiray, maaragtay saliidihii meeshay ka baxayaan. Kan waxaa weeye mal af carabigana mal le lagu dhahaa, murna way ku dhahaan af carabiga, macnaha waa qaraan. Dad badan waxay dhahaan mal dhaleysa lagu noqdaa. Qofka intaas la eg ama galeyda oo 2 xaba ah ayuu habeenkii biyo ku raadinaa. Wax kasto haddii tankooda laga badiyo waa lagu xanuunsan karaa, waa lagu dhiman karaa. Madhaleys keliya maahan, xitaa waa lagu dhiman karaa. Marka waa wax yar oo aad biyaha ku ridaysid. Xabagtan haddaad joogtaysid, hergab isma arkaysiin, qandhe isma arkaysiin, lafa xanuun isma arkaysiin, insha allah isma arkaysiin, infection dhiigga raaco, brusel, skinka maqaarka dhibaatada jirto oo dhan wuu xalinayaa. Dawo fara badan ay leedahay, laakiin qaabka loo isticmaalo haddii la qaldo dhib badan ayaa ka imaan karo. Madhaleys laguma noqdee, hawada lagu dhimaa. Dadka ku dhimaayo waa dad ugu talagalay iyagii xad badanna ay ka qaateen, laakiin xadka yar waxba laguma noqdo. Rag iyo dumarba waxba kuma noqonayo. Waxaa kuu soo haray geedan la yidhaahdo Francis, af Soomaali waxaa lagu dhahaa luubaan. Waxay ka baxdaa buuraha, buuraleyda Boosaaso iyo meelo badan oo Soomaali ka mid ah. Luubaantan gaalada waxay u isticmaalaan kansarka, memory, dadka macnaha xasuusta raba inay soo celiyaan, depressionka. Inta badan dadka depressionka, anxiety qabo oo mar walba moodkooda aad u hooseeyo unsi ahaan way u shidan karaan. Cabitaan ahaan waa loo isticmaali karaa. Cabitaan markaa u isticmaalaysid waxaa kugu filan halkii mar qaado nuskeeda oo kale ayaa kugu filan maalintoo dhan inaad cabitaan ahaan ka dhigitid. Cabitaankana intaadan ka dhigan habeenkii biyaha lagu radiyaa. Markay rado buday noqonaysaa, way kala daadanaysaa. Markaasaad cabitaan biyo ku shiidan kartaa. Waxyaalo kale oo dhadhan kale u sameeyaan waa ku sii darsan kartaa. Dadka ilkaha ka xanuunayo ama af urka qabana daway u tahay, xanjay ka dhigan karaan. Waa cajiib. Nanacii waa haysanaa oo dabiici ah, xanjadii oo dabiici waa haysanaa, kareemyadii waa haysanaa, macdantii oo dhan waa haysanaa. kansar ha u aadinin Hindiya iyo Itoobiya, dhulkiina ayaad ku dawoobi kartiin. Cuntada iska saxa, biyaha iska saxa, cuntadii iyo dabiicigii aad haysatiin isku daweeye si taxadir leh. Ilaahay bari, quraan issaara. Intaasaa u baahantiin. Wax sajal laga soo dhigay oo laleeyahay caanahan dibadda laga keenay, cuntadan dibadda laga keenay, saliidan dibadda laga keenay, iska daayay. Assalaamu calaykum.